Sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya oo gabar uu jeclaa ku dilay degmada Balad Xaawo kadib markii loo diiday walaal like saar aragtidaada ka dhiibo oo share garee muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan like-na waa inoo muhiim mahadsanidin badan sarkaalkan ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa gabar uu jeclaa oo lagu magacaabi jiray Ismahaal Bakaal waxa uu ku dilay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo kadib markii waalidiinta inta ka doontay ay u diideen Nuur oo ah sarkaalka dilka geystay ayaa maalmo ka hor ka fasax qaatay saldhigga uu ka tirsanaa si uu u tago magaalada Balad Xaawo oo uu doonto gabadha uu jeclaa ee Ismahaal Bakaal oo ilma abti iyo ilma eeda ay ahaayeen muddo sanado ahna ay xiriir jacayl lahaayeen gabadha waalidiinteedna ay u garaaceen tiro dhowr jeer ah inay ka harto ninkan balse markii uu tagay magaalada Balad Xaawo uu doontay gabadha tiro dhowr jeer ah uu jeclaa inta odayaal watay ayaa gabadha waalidiinteed u diideen iyagoo markaasi uga cudur daaranaya in gabadhooda aysan nin askari ah siin karin una uusan qalmin Nuur ayaa ugu dambeyn xalay gabadhii uu jeclaa inta ballamiyay oo banaanka gurigooda ugu tagay isaga iyo askar kale oo la socotay afduubeen iyadoo markii dambe banaanka magaalada inta geeyeen oo askari la socday qori ka qaatay Nuur uu halkaasi gabadhii uu jeclaa uu ku dilay sidoo kalena la sheegay in markaasi muran uu soo kala dhaxgalay isaga iyo gabadha sida ay wax u dhaceen ayaa goorsii horeysay waxa iga warramay Yuusuf oo ka mid ah dadka deegaanka ee magaalada Balad Xaawo ku sugan ninka hadda dadka geystay horta ninka waa nin sarkaal oo ciidanka dowladda Soomaaliya ka tirsan yahay waa askari marka muddo hadda inka ku xog dheeraad in fasax ugu nahay dhinacan kala duwan nidaamka ka yimid inta nin deegaanka uu yahay laakiin adigu waa shaqada dowladda ka tirsan meesha fasax ugu qaaday muddo gaabana marka fasaxaasna waxa uu wasiiray gabadhan inay muddo sheekaysanayeen gurtaan ay gabadhaas uu gurtay fasax soo qaatay markuu intii family gabadha uu ka doontay kama kulmeen gabadhii diidan family hadda xogtaan ku yeeleen waata marka adigu waa dhacdo ka bilaaway gabadhan loo diiday doon badan ay soo martay dhowr jeer oo farayso gabadha hadii loo diiday walaal qadartii awshaan markay meesha ku yeertay dheer socotay ana ma dooraday abaarta ka ah inuu joogo asaga iyo laba nooc la socday gabadha waxay yiri lanaagta gabadha ka kala dhaxaysay xiriir wada lahaayeen dheeraadeen wada soo baxday markii daraha uu soo baxdayna waa dubaan bay qaaseen lacag kuleen meel magaalada geeskeeda oo iskoolka waa bar liyaado oo dhinacan aan waqooyi ka magaalada bar la geeyay taashan gabadha lagu dilay marka ma jirtaa gabadha in ay isku dhaceen ninka sarkaalka ah ee ciidanka dowladda ka tirsan ma isku dhac ma jirin sida hadda xogtaan ku yeelan gabadha ninka muddo sheekaysanayna waa socdeen family marka hadii arrinka ma bay family oo hada jiibay ninka iyo gabadha waa qaraabo dhow isku yihiin sida hadda la sheegay ma si meedo marka gabadha hooyada baad u diiday ninka inay gabadha soo ka dhawaado ma askari gabadha siin maayo shaka noocaasa yaada la helaya marka ma dhaadin ka soo xaqiiqo dowladda bood kala waxay ma dheeraa xaqada ma ka tirsan talaan laakiin dadkii raayana ka roonay ma aan dhaxgalnay waxa ku raaga wara ninka aan dhaho diris ku soo dhahay inta family arrinta ma dhaxay oo gabadh ninka ma dhawa ninka wada la imaado ninka fasax uu soo qaatay gabadha inuu guursaday dawladda uu yimid marka arrin family ka soo noqotay maxaan Bakaal leeyahay ninka sabkiisa hadda ku hayna waa nin sarkaal oo ciidanka dowladda ka tirsan ninka dowladda ka tirsan waa sida dadka wararka korna bisha ka tirsan laayeen laakiin hadda dadka mas'uul ku ah raguna dowladda ka tirsan hada ku qaatay laakiin salaantii oo nin deegaankan ayaa wararkaas xaqiiqda loo badanayaa ninkan hadda loo inuu kala lahayn si hadda nolosheeda marka halkaasina koray dowladda lagu dilay la xaasay ninka askari kala si hadda la sheegay askari ma aha badanayo laakiin Nuur baa loo magacaabaa wuxuu dhacay xaalad dhacday in abaaraha dalka ma jira ma askari markii ma fakran askari iyo toosay sidoo kale horey in kashin horey in dowladda la hayo